ingiriisku wuxuu dhulkan yimid qofkii ugu horeeyay 1886 87 89 90 waxaa loogu soo horeeyay berbera meelaha uu ka soo degay ingiriisku wuxuu berbera u yimid berbera ujeedadiisu ma ahayn inuu Soomaaliland inteeda kale u gudbo ee ujeedadiisu waxay ahayd inuu cadan oo uu u hilib la'yahay oo berbera hilib iyo subag uga helo dabeedna marka ka dambaysa halgankii daraawiishta ayaa ku bilaabmay wuxuu khasab ku noqday intuu uu berbera iyo burco berbera iyo shiikh dhexdood maalinta ayuu wuxuu dhisma ka bilaabay magaalada burco la yiraahdo si uu ula dagaalamo halgankii daraawiishta waxay waqti ku qaadatay dheer markii dambana waxa toos 1918kii 1918kii waxa meesha ka baxay wixii la oran jiray maxamiyadii weyneed ee Ottoman Empire ama civilizationkii weynaaye ee islaamku lahaa ayaa meesha ka baxay 1918kii ayaa qodobkii ugu dambeeyay la laalay ama xukunkii ugu dambeeyay ee Ottoman Empire-ka wixii la oran jiray la laalay waxa dagaalkii koowaad ku ahaa heshiis Jarmal iyo Turkiga ayaa isku alliance ahaa Yurub iyo Mareykan iyo inta kalena alliance bay lahayd Jarmalka iyo Turkiga lagu jabiyay dagaalka labaduba waxay taageerayeen halgankii daraawiishta oo dad bay u soo direen taleex hubka u sameeya Sayid Maxamed Cabdulla Xasan isaguna daqiiqa sanad ka bacdi ayuu la jabay ingiriisku markaa ayuu go'aansaday in uu Soomaaliland isku ballaariyo dad badan oo reer Soomaaliland odayaashiis iyo waqtigoodii waxay la galeen heshiisyo heshiisyada lala galay waa heshiisyo qoraal ah oo halkana lagu qoray cid walibana la gashay waxaanu yarataa taabanaya taariikhda 26 Juun awooda taariikheed ay dalkan ku leedahay ee aanay ahayn laba kelmadood oo la iska daba yiraahdo ma dhamayn karo haddaan israado dhammee waan soo gaabinay waxaan leeyahay maanta waxaynu joognaa Somaliland aynu maanta joognaa waa mid lagu naaloodo waa mid lagu niyaariyoodo waa mid rag badani effort ku bixiyeen hanti magac maskab iyo awoodba reer Boorama waxay xagga hore kaga jiraan dadkii reer Somaliland dhisay waxay xagga hore kaga jiraan dadkii reer Somaliland dhisay waxaan ku celinayaa reer Boorama waxay xagga hore kaga jiraan dadkii Somaliland dhisay reer Boorama magacyo badan oo abaal ah ayaa hadda loo yaqaanaa Boorame magaaladii waxbarashada magaaladii ilbaxnimada magaaladii Somaliland dhistay magaaladii aad iyo aad waxaan arkaa magaalada Hargeysa oo looga soo dalxiis tago magaalada Boorame waxaan isleeyahay marka loo eego dalka intiisa kale waxaynu joognaa goob nabdoon goob fiican maalmo dhaweyd oo telefoon lala dhex maray ama ninka la dhex maraya siduu doona ha u dhigee mikrofoonka mikrofoonka lala dhex maray ma garanayno ma mikrofoonka la siyaasadeeyay mise waxba hoosta ka hulaaqay ma mikrofoonka qorshaysnaa
waxaynu ka soo qaadaynaa mikrofoonku inuu qorshaysnaa laakiin mid baan idin sheegaya haddaynu nahay anigu waxaan ka soo jeedaa geeska kale ee Soomaaliland qodobka aan idin leeyahay hoosta ka xariiqa waa laga yaabaa in rag yiraahdo muxuu ina koore sidaa u yiri laakiin haddana waa runta waana biyo kama dhibcaan haddaad maqashaan Soomaali baa Somaliland rabta haddaad maqashaan Somaliland Soomaali baa Somaliland rabta Soomaaliya Somaliland ta ay rabtaa waa beesha dhexe waan hadalkayga aan idinku celiyo idinma gelin haddaad maqashaan Soomaaliya Somaliland rabta haddaad ii dhagaysta Soomaaliya ayaa Somaliland rabta haddaad maqashaan Soomaalidu cidda ay rabtaa waa beesha dhexe waa nimanku qalbay oo ku jiraan qolka ku haya warka ma garateen war halkan inaga kaga adag haddaynu badda xamar isla tagno qoladayada xaggaana cidiba xusuusan mayso 9,000 oo aanu sheeganayno oo naga belaysan ma naga horeeyo yaa numberka aanu ku dhacayno cid garanaysa ma jirto reer booramana waa runtaa laygu yaqaanay runta ma idin sheegay yaa waxaan idin leeyahay nimanku qoobad bay ku jiraane qoobada aan ku hayno Somaliland la wada leeyahay oo laga wada arrimiyo oo laga wada taliyo oo aynu ka wada tashano oo aan cidina go'aankeeda lahayn oo loo dhan yahay ayaynu rabnaa soo sidaa ma aad iyo aad baan idin salaamayaa guul baan idin rabtay